waxaa maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose xalfad lagu caleema saarayay madaxweynaha Jubbaland Barre Aadan Shire Barre Hiiraale oo maalnimadii shalay lagu doortay magaalada Kismaayo. doorashada Barre Aadan Shire Barre Hiiraale oo ka dhacday hotel Barawa ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoono culimo u diin siyaasiyiinta ku dhaqan guud ahaanba gobolada Jubbooyinka waxaana ugu horeyn siyaasiyiintii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay ay ku amaaneen in loo baahan yahay madaxweynaha Jubbaland inuu noqdo madaxweyne si rasmi ah ugu bixi karo ama caqabadaha hortaagan gobolada Jubbooyinka ka dulqaadi karo kaasoo ay ku tilmaameen in uu noqon doono Barre Aadan Shire Barre Hiiraale. waxaan u mahad celinayaa bulshaweynta Soomaaliyeed ee iskugu timid xalfadan lagu caleema saarayo madaxweynaha Jubbaland State Barre Aadan Shire. waan dooranay waan qaadanay waad ku mahadsantiin sidaad uga soo qayb gasheen xalfadanna sidii la rabay bay u dhacday agaasimkeeda dhammaan bulshada waa u mahad celinayaa asaguna Allah ka dhiga kii xilkiisa guto annaguna sidaan u qaadanay baa Soomaaliya oo dhan u wada baahan madaxweynaha Jubbooyinka Jubbaland Barre Aadan Shire Barre Hiiraale oo ku salaamayna madaxweyne waan ku taageersanahay waana ku dooranay Soomaalina waxa weeye mowqifkeeda waxa weeye dadka Jubbooyinka waxa weeye nin alla ninkii khiyaarka leeyihiin ayaa dooran kara cid xasbi kartan male Soomaalina sida rabta u raacaysa inaan reer deegaanka hadaan nahay Soomaali weyn Kismaayo anaga waxaan dooranay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland State Barre Aadan Shire Barre Hiiraale wiligiisa guuleysta waxaana si heer sare ah ugu soo dhaweeyay doorashada madaxweynimada gobolada Jubbooyinka iyadoo Barre Aadan Shire Barre Hiiraale shacabweynaha ku dhaqan kuwaasoo haatan ka dabaaldegaya xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo. caleema saarka kadib ayaa madaxweynaha cusub ee haatan loo doortay gobolada Jubbooyinka iyadoo ayaa waxa uu khudbad dheer ah u jeediyay ergadii dooratay isagoona sheegay in dawladiisa cusub ee haatan ay u guurgali doonto xaaladaha iyo waliba siyaasadaha hortaagan. waa taageeridii doorashadii shalay ka dhacday Kismaayo oo dawladdeeda lagu doortay waxaad isugu soo baxdeen dhammaantiin inaad taageertaan madaxtinimada naloo caleema saaray oo adinku noo dhiibateen inaad taageero buuxdo u muujisaan yaad isugu soo baxdeen waana idiin mahad celinaynaa farriinna naga gaarsiiya inta aan maanta fursaddan aan soo helin inaan warka naga dhegaystaan ee aad dib ugu noqon doontaan in colaaddu dhammaatay عبد القادر إيمان دقني TV عالمي هون كابل مقالة Kismaayo.